dadka ku dhaqan deegaanada miyiga ee waqooyiga magaalada Gabiley ayaa cabasho ka muujiyay xawayaanka daanyeerka kadib markii uu dagaal dhex maray iyaga iyo daanyeerka kaasi oo daanyeerku kaga adkaaday isla markaasina uu kaga qabsaday beeraha iyo guryaha ay deganaayeen waxa ay dadkani sheegeen daanyeeradani oo tiro badan ay soo weeraraan maalin kasta iyagoo boqolaal ka badan isla markaasina ay awoodi waayeen iska celiyaan waxayna xuseen in dagaalkaasi ay kaga dhaawacmeen 2 qof dadkani ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay inuu farataystay daanyeerku guryihii isla markaana uu raashinkii waxna cunay waxna ka daadiyay halka uu jeexjeexay lacagtii taalay guryaha ku beeraha marka la arka la iska celiyo waxa oo cuna laakiin kani waa ku kaankii ahayn oo ciida ka badan oo malaayina oo dadka magaalooyinka Gabiley inta leegin ka badan ah oo xoog adeegsanaya oo dadka boobaya oo leynaya oo xoolaha cunaya oo aqalada yar yar ee dadka reer guuraagu sitaan galaya oo wixii raashina intuu furto cunaya oo hataa waxa dhacday nin awr soo iibsaday oo lacagtii jooyadii yar ku ritay gebigeedii inuu gooyay $2 bilyan ciduu arko dilaya annagu waan ka soo qaxnay meeshii waxa la wixii aanu beeray wuu cunay meel aanu ku noqono ma hayno dawladda waxaanu ku leenahay hadaad wax ka qaban karaysaan ama dadka xiriya u ooda meel aan saaka laga cabanay ma jirto meel walba waanu dadku dhaawacay baa dhakhtarka yaala dadkeed xanuunsan iyo soo rogay ayuu reerkii eedayga dambeeyay ku yar iyo tuurmaan kaga tagay labadiina way ka baqeen way ka baxsadeen hadana waa la xijirtay way tuurtuureen raashinkii ka ku cunuu dhameeyay uu waxa yeeshaan yimiday dharkii hambayaasha ku jiray jawaabka ku jiray dharkii uu la yaacay kolka hadii saaba looga baxo markiiba uu gelayaa dabeedna waxa leeyahay wixii yaala hadduu raashin tahay haday lacag tahay sida bini'aadanka si ka daran buu u baaraa anagu waanu la dagaalanaa habeen iyo dhara isagu baanu la joognaa waanu ilaalinaa wax wixii ka badan buu noqday awal la ilaalin jiray anagu de awoodanu la dagaalano oo kala ma hayno bahalkani farab aan nagu hayaa wuxuu ka soo guuray ilaa xeeb buu ka soo guuray kuwii aan arki jirnay hore ma duulaanka daanyeerka uu ku soo qaaday dadkani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaaruhu saameeyeen dhulkii uu ku noolaa isla markaasina uu ka soo qaxay waxayna taasi keentay in dadka uu ku qabsado raashinka ay quudanayeen Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley